markasta oo qorsheeyay runtii degmaahan anigoo soo koobay hadalkayga waxaynu doonaynaa totalka guud ee ardayda dugsiga sare ee Bursada waa 940 arday kunkii arday 60 qof ay nooga dhimay maanta waxayna la joogaa shirkadii isgaarsiinta ugu ballaadnay ee Telesom uguna daada weyneed shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliland waxaa jira magaalada Berbera 3 shirkadood oo isgaarsiina oo Nationalink, Sontel iyo Telesom ardaydu marka ay dugsi sare ka baxaan waxay isugu jiraan dhowr nooc qolo waxay ku fikirtaa inay shaqo tagto qolo waxay ku fikirtaa inay waxbarashada sii wadato qolooyinka jecel inay waxbarashada sii wadato haddaan tusaalayaal ku bixiyo qaabka ay shirkadahaas inooga bixin karaan waxbarasho bilaasha in yar aynu isdhegaysan 940 arday oo ku jira iskuulka Bursada waxay isticmaalaan isgaarsiinta gobolkan ka shaqeysa noocay doonto ahaatee waa kasta oo bariya 940 arday waxay ku shaqaan $1 ugu yaraan shirkaduhu waxay soo celiyaan message abaalmarin ay ku leeyihiin waxa la shaamo 0.5 ama 0.10 940 arday 0.10 hadaad ku dhufato waa 4.9 hadaad 3 casho ku dhufato waa 2820 haddaad sanadka ku dhufato waa 33240 $. haddaynu kariyeer intaas oo keliya aynu shirkadaha isgaarsiinta ka helayno 30 arday oo waxbarasho heer dibadeed ayaynu heli karnaa waxaynu heli karaynaa 500 shilin ee hooyadaada sariibada fadhiisata laga qaado in 400 dawladda u xarooto 100 shilinna waxbarashada gobolka lagaga fikiro laakiin waa xilin ma midaysnaanaa ma isku duubnaanaa ma midaysnaanaa ma qiimaynaa dadkeenna waaweyn iyo waalidiinteenna ilaahay waxbarashada idiin barakeeyo waxaanu idila garab taaganay hiil iyo hooba saacad walba iyo goob walba iyo goor kasta. Wassalaamu calaykum.